xafladii qalinjabinta ee madrasadda ibnu taymiya islamic school ee tuulada saangur mas-uuliyiintii soo xaadiray waxaa ka mid ahaa xildhibaanka laga soo doortay degmada balambala mudane cabdi cumar shuuriye. saangur horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin. maanta arrinta halkan sukaan keentay waa arrin muhiim ah, waa arrin diini ah. midda u hore waalidiinta lagu mahad celinaya waayo wakhtigooda inay carruurtooda soo riixaan ay madrasada soo aadaan juhdi badan bay geliyeen. waad ku mahadsantihiin. arrintaasna ku sii dadaala aad u xoojiya. shalay tukaashaan joogay diyoogi saaqa waa hadlay marka wuxuu yidhi program maxaan wadaa saaqa carruurtooda aan dabageli hayno wood ahaan. hadalkan ku yaaba wuxuu yidhi cunigii madarsa dhigan hayo bannaankaan ka marayna, kii taxfiid dhigan hayo bannaankaan ka marayna, iyo kii iskuul dhigan hayo waa carruurta wuxuu yidhi inay saddexdaa mid aadaan kaan aadaynin maxaan ku qasbayna in iskuul aado. ninkaas waa nin gaal ah ka waran. good wuxuu qiimeynhayaa culiga bedelka guriga jooga hadduu taxfiid aaday ninkaa dhan buu ku mashquulsan yahay. waxaan rajeynaa insha allah maybe laba way kadib inaan imaano aan alla idmo. wixii kaloo siyaasi iswareysana xaggaasaan ku gelayna maanta wadaadkii sheekh shacab cabdu naga xiray. marka waana mahadsantihiin, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. shukran jazaakum allahu khayran. waxaa kaloo isna ka soo qayb galay xafladdaasi qalinjabinta ee madrasadda ibnu taymiya islamic school xildhibaanka laga soo doortay Garissa Township mudane Meja Deeqow Barrow. in badan baan meeshan iskugu imaanay madrasadanayto qalinjabiska ardayda ee madrasadanayto. ilaahay baan ku mahadinaynaa maantana haddana fursaddaasoo kale uuna siiyey inaan iskugu imaano arrin khayr. midda labaad ninkana waa ku mahadsantihiin sida usoo usoo ajibteen khaasatan kuwa Gaarisa ka imaadeen culummada madaxda ah ee Gaarisa nooga imaadeen iyo reesaan gurbo dhammaan maxaan u malayn maanta magaalada udul intay fadhidaa waana ku mahadsantihiin. waxaana leeyahay ardaydii maanta qalinjabisay iyo anigana mabruuq leeyahay waan u mahadbaliyaynayaa waalidiinta oo iyo khaasatan maamooyinka ilmahanayto soo tarbiyeen oo ma aragtay fursadan siday ku heleen oo qaaliga ah ayaguna waan u hambalyaynayaa. waxaan ku farxay runtii dadaalkii ay sameeyeen macallimiintaasayto oo maanta dhigayeen. marka insha allah waxaan filaynaa inay dadaalkii lasii xoojin doonaan isii muujin doonaan oo maanta safarta moogi safarta dambadaan iskugu imaano ilaahay raalli ka noqdo intan in ka badan inay la heli doono. middaa waa midda labaad oo muhiimka ee aan ka hadlo aan rabo maanta labadaas shay keli baan ka hadli. mid waa midii madrasada insha allah wixii madrasada laga qaban doono waan ka hadli doonaa culimadana kala fariisan doonaa gaar haddii ilaahay raalli ka noqdo. midda kale waa arrimahan abaarahan haysato waxaan leenahay waan nigu mahad celinaynaa. ummaddaasayto waa ummad rafaadsan. hadda kama hadlayno arrimahan kale ee dhulka idageyni waxaasayto bal horta sidaan ku badbaadin lahayn aan insha allahu ka hadalno. nimankaasayto intii garab loo noqon karo ha loo noqdo. dhib weyn baa haystaa meelay ka imaadeen Mandheera ininka ma garanaysiin. Mandheera waa adduun kale. ninka hadda maanta gaari inta ka qaato habeen dhaxduu sii bari. marka ninkii inta u soo cararay dhibkii soo wada kolley waa dareemaysid. marka walaalayaalow u samra. dhibka haystaa annagana wuu nagu dhici karaa. waxaan rabnaa inaad u samartaan inta soo harta ilaahayna aan barino inuu roobna siiyo oo dhibaatada naga wada bixiyo. maxaa annagana haddana waa agtooda ayagana waa la fariisan haddana. marka hadalkayga intaasaan kusoo koobi. waa mahadsantihiin.